كدغيسا راديو حريو wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh راديو حريو codka shacabka ogaadeenaya dhageystayaal marka ay soo baxday wararka sheegaya inuu baqtiyay kaligii taliye Sanaawi ayaa waxa dad badan shaka ay ka muujiyeen si jiritaanka waxa loo yaqaan Itoobiya iyadoo la sheegay in xisbiga TPLF ee ku dhisnaa cadaadiska iyo caburinta ay ka dhex bilaabatay dhibaatooyin siyaasadeed oo ku saabsan cidii lagu bedeli lahaa kaligii taliye Malla Sanaawi iyadoo la sheegay in xisbiga TPLF uu kala jabay laba garab ayna iskhaarijin ka dhex bilaabatay xisbiga dhexdiisa haddaba si aan wax badan uga ogaano shakiga faraha badan ee caalamku ka muujinayo si jiritaanka waxa loo yaqaan Itoobiya ayaa waxaan waraysi la yeelanay Xasan Maxamed Macallin oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Itoobiya ahna u qaabilsanaha ururka ONLF arrimaha Itoobiya waraysigaasi ayaa waxa inoo qaaday wariye Cabdinuur Sheekh Maxamed حسن كسر دو وهرين راديو حريو بسم الله الرحمن الرحيم وما صنت هذا الدول مركو هراء أنا فرصة قال يا كفى إنسانية مدام أن كسره دي بركيسن بشر رمضان وحن لما مسلمين تعدون كتشوته مركز توشيوان ده إبرايا الله يهي رمضان كريم لما نتبه جرحان دك الصومالي جوابين مركز توشيوان ده مركز لبعض وحن عندنا يبدأين إبرايا إذا تشوفه واتش كودا سنة كذا إبرايا هذه هذين ده سؤال كمية جنسية ودن قادم مدة مركز الدهات واحد مهات بالله شيء بعض الرجل حرية حسن ما دام عطاي خبير أدو حل دير أرمها إثيوبيا أورو كان لا أرمها تي أدنى أولص على بريها دم مرحلتها المروكسن أي كان في جيريدا أما حنون كمال الزناوي ما حد كلاص عطا أرمها في سيبا حنون كأما جيريدا مال الزناوي منول يا مسؤول أرمتا حرب المال سكوتشوي وأرم المروكسن إن كستوى بنادي هذا الذين عودوا فيه بصراحة سلام لها إنه غير إنه ورثة خلاصين كوح أوتريسا ورثة TPLF أي كوكل عندنا ملت سوى لصعونه كم قلنا هي مصلحين أبيك كبرا صدق يعفر تنجري وحنا يجب أن يصير أغراض شركة نفس الخدع جي تويت سميكة لما قطيش جي تويت الدين وقت الغرب صوب الله ملت يدي يمين بركة سمن إنت قدام سن بالبرنامج ورك TPLF أيام الحين ملت زناوي وحنوسنا كذا فتح على فيه فتح بكل قيمة كذا هذا سبحان الله أو عاد بدون ورك TPLF اسمه كشري يرب شوي وحنوسنا ودكتور كشرو حفاعة عن وحول اللي نقول دين عبدين اللي وحنوسنا من الزناوي تكسير بطلها هي وهكذا كسر المقاهي وحكي تبتين لواء شمال أما يربيت وكسر بحد السباق وقوى الأفكار ورك TPLF أما بتغيره ومن اللي جاي عديد فرشون من اللي يعرفها من الحجري إنه حمود بكسر بكسرين وبكسرين وكسرين حاصل بوا عديد فرشون البطر ومن قليها هم TPLF كتر شمان تريه وبيبدأ يبدو يا كعطفة تريه زي الحجري مريكين كتشوي هذا وحيالا حاصل بمكافيسو وحيث تبصرين فيها وركب خلاصين يقدر نفسه إنه كوردينيشن كده حديد واحد أورك TPLF waxay qarnayaan in isku ana xaqiiqo sheegin sababta miyadu aan sheegin sida yiri jiraadin oo khurmay iyo fasaxay jira iyo maray jiraadin urur maarif iyo xaqiiqo aad hormudintay wadada hadalbeedna aad marta arrinta u qarnayaan sababtoo ah waxay diidan yihiin in xashiyo daro wadan ka abuurmo marka dhaqanka Itoobiya ama TPLF ay naqaano haddii inaba ma la caafimaad yar helayaa inta ku soo kordhiyaan ay kooxdayeen suuqyada وصوت الرحمن بديه هاي كوش مني وصير في نص بتشين هاي مركا جهاد صوت البيت وركع إخلاص الله كسر بحي على كلام في سبيل الأركواي وركع ما عارف شيئا بدأ يبدأ وخلاص وركع شيئا جهاد من ذا في معود كذا يا سكعب وقرت حسن الآد بالرماها في اللي صلاد حمرية ما دام تاي خبير آد الرماها ولصو صعداء الرماها يتوبيا ونجودهان مرة بدنا الله يوريتي
idaacadaha mucaaradka ee waddanka Ethiopia mucaaradka kuwa ama tan haata Jarmalka joogtay Deutsche Welle ama tii hadda u dambeysay laga wareysanayay darrata laga wareysanayay ha ahaato maxaa keenay in ilaa hadda ay qariyaan xanuunkiisu intuu leeyahay ama geeridiisa ay qariyaan ma cabti ay qabaan baan masalayn cudud ay isku badbaadiyaan hadii uu meel salaamu meesha ka baxo runtii waa su'aal fiican oo meesha ku jirta horta aayadan qarinta ninka madaxda ah ama kaliya waa caado jirto oo hadda ma cusla qofku haddii sharci ku imanin in la qariyo waxaa keenaya cabsida ay bulshada ay maamulaan ay ka qabaan ama dambiyada ay geystaan inay ku qarxaan bay ka baqanayaan waxaan misaal soo qaadan karaa 1977 waxaa geeriyooday boqorkii milig labaad sadexdii kadib ayaa dad dadweynuhu loo sheegay intaana waxay ka baqanayeen halkan Suudaanna soo yiri Soomaaliyana soo yiri waddanka kala carabi ilaa kulka horeba waddanku wuxuu ahaa mid xoog مسؤول كان عن عدالة أي كتير يعني بريسك واحد عن history repeats by itself هذا اللي برجع كل سؤال بس كمان دعوة ما أنت دعوة مرة وان قرتي حسن تاريخها ينظم بيانا أنا صار دعنا ومركا waxa ka socda Ethiopia maanta waan la wada soconaa oo banaan baxyada ka dhacaya haba loo badiyo in ay dadka muslimiinta oo ka cabanaya faragelin dhanka diinta ahaa ay u badan yihiin kacdoonkani uu qayb ka yahay xanuunkan iyo geeridan la maqlayo ee Mala Zanaawi meelaha mucaaradka aad baad u gashaa dadka commentiyada ay ka dhiibanayaan dadka axmaarada ama Tigreega ama qowmiyada kala duwan Ethiopia aad baad ula socotaa marka qowmiyadaha Ethiopia haddii Mala Zanaawi geeridiisan ay dhab noqoto maxaa laga filan karaa runtii horta waa gacan ku jirta dhinaca kale qaabka ay u maamulaan dadweynaha hadda doonayaan inay dastuurka Ethiopia ka bedelaan TPLF hogaamiya ayay inta badan ku xiran tahay isugu yahay fadhigo horta TPLF na iyaga lama saadaalin karo arrimaheeda marka qowmiyadaha kale Ethiopia markii aan fiirno cadaadis badan baa loo geystay dil badan baa loo geystay dhibaatooyin badan baa loo geystay maciishada heerkay maraysaa dadku waxay ku noolaayaan bilaayihiin kuwaal qof baa xiran marka runtii hadda heer waxay taagan tahay meesha ugu dambeysay ay ku qarax lahayd arrinta qarax lahayd sidii wadamada kacdoonadii ka dhacay wadamada carabta oo kale inay ka dhacdaan laga yaabaa taas waxaa keenaysa maadaama dadku ay aad iyo aad u naceen ay uga gudbisan yihiin maamulka ururka TPLF kacdoonkaas oo keeni kara in dadku ay gacantooda ay ku qaataan xukunka sidii wadamada carabta ka dhacday oo kale marka runtii Mala Zanaawi laftiisu 2005 doorashadii markuu ku guuleystay wuxuu sheegay in yiri qolyahan kacsan ee kacdoonka ee mucaaradka Ethiopia waxay wadaan alaaso ay Ethiopia doonayaan inay ku kala guraan sidii Rwanda oo kale sidaa wada hadda inay ku socoto waan gartay xasan kuwaasi qowmiyadaha Ethiopia ahaayeen inaga ka ogaadeen ahaan maxaa faa'iido ah oo ay noo leedahay ama noogu jira geerida ama isku dhaxyaaca ku yimaada Ethiopia adu filayso runtii marka la fiiriyo waxaan nahay ururka kaliya xeerle ee dastuurka military ahaan u dhisan ee siyaasad ahaan gudaha iyo dibadda isku xiran ururada kale ee ugu saman oo kale tiiri ahaan bay jiraan qaabka military iyo gudaha iyo shaqada ayaa dhinaca kaga horeyna marka waa fursad qaali ah haddii ay Ethiopia kala tagto maanta waxaan nahay rijirka oo xooggeeda iyo siyaasadda meel marin kara ayaan nahay marka leeyahay wax ka faa'iideeyay kuma khasaarayno hay'adda baasiishada qaadanaya diishana insha Allah gacanteena ay ku dambeyn doontaa waan gartay xasan adigoo aad u mahadsan su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyay maadaama aad xog dheeri ah ka hayso ama aad ula socotaba qowmiyadaha iyo ururada mucaaradka ee Ethiopia dadka ogaadeenaya ee gudaha ku sugan iyo kuwa dibadda ku sugan ba kacdoonadan adiga oo la xiriirinaya maxaad kula dardaarmi lahayd ugu dambeyntii in haddii marxalad kala guura la galo wadankoodii dalkoodii iyo ayahooda ay u tashadaan iyo waxay sameyn lahayd maxaad kula dardaarmi lahayd cabdullah dadka ogaadeenaya guud ahaan haddii qalabaas Ethiopia ka dhaco waxaan kula talinaynaa ama soo jeedinayn ama ugu baaqi lahayn in ay gacmaha isqabsadaan xoogooda dhulkooda dalkooda naftooda u huraan sidii ay ugu jireen gabadha muhiimka rag iyo dumarba intay gacmaha isqabsadaan in ay midnimada ilaaliyaan oo ay chancelan hadda fayda lagu soo haya sidii lagu faa'iideysan yahay waaweyn lagu qoran lahaa dad boqor laga dhintay gumaysiga horihiisana soo qaadi lahayn in xilligeed la galo in loo guntamo loola diyaargareeyo
xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga militariga dhinac walba inaynu ka dhisnaano oo moraalkeenu kor noqdo ayaa loo baahan yahay oo saanisku waxa weeye sidii hillac ku maray oo kale alxamdulilah dhinac walba waan ka dhisanahay marka bulshadu sida ay ogaato oo gudihiisa diyadda laga diyaargareeyo oo la badiyo shirarka oo la badiyo wadatashiga oo ilaahay la kala saarto oo kadib ilaahay la isku dhago marka ilaahayna ka rajeynaya inuu tasalna waafajiyo guul iyo gudnimadu ayaan u rajeynaya dhammaan gudnimaha reer ogaadeen meel kastoo joogaanba ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka